gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa kulan aan caadi ahayn isugu yeedhay xildhibaanada golaha wakiilada oo in muddo ah fasax ku jiray. Gudoomiye Baashe Maxamed Faarax oo 15 Juun warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa ka warbixiyay ujeedada kulankan degdega ah ee xildhibaanada golaha isugu yeedhay. Waxaanu sheegay in kulankaas uu yahay si xildhibaanada golaha ay waajibaadkooda dastuuriga ugu gutaan labadii xubnood ee xisbiyada mucaaradka ugu matali lahaa komishanka doorashooyinka. labadii xubnood ee mucaaradka komishanka ka dhimna ayaa la isugu yeeray in hadii ilaahay maalinta sabtida la horkeeno golaha. gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland oo hadalkiisa si wata ayaa taageeray khudbadii madaxweyne Muuse Biixi ka jeediyay kulankii wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee dalka Djibouti. waxaanu sheegay in marka uu yimaado wadahadal la is afgaran karo taasina ay dan u tahay labada dhinac. waxaanu sidoo kale uu meesha ka saaray in lagu kala kacay kulankaasi. Baashe waxa uu tilmaamay in kulankani uu ka duwan yahay kulanadii hore oo ay goobjoog ka ahaayeen dalal shisheeye, taasina ay fursad u ahayd Somaliland in ay ku soo bandhigato garteeda isagoona hoosta ka xariiqay in aan suuragal ahayn in dib loo midoobo sidoo hadalka u dhigay. sida wanaagsan shirka loo abaabulay iyo soo dhaweyntii loo sameeyay wafdiga Somaliland. waxaan kaloo shirkaasi waa shir muhiim u ahaa. Soomaaliyana xoog bay u timi, Somalilandna culays labada dawladba culays bay geliyeen. dadkuna waxa khasaba inay wada hadlaan, wada hadalka la isku afkartaa. marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa weeye shirka ka socday Djibouti waa wax danta Soomaaliya danta Somaliland ay ku jirto. marka dil istilmaayo waa la wada hadlaya. qolo waliba waxay sheegatay wixii ay qabtay. inagu waxaynu sheeganana waynu naqaan oo waa wax inoo qoran oo dastuurkeena ku qoran. marka wafdigeena madaxweynaha waxaan ku aqbaliyay khudbadu ka jeediyay ee masiiriga ahayd. shirka aynu madaxweynaheena iyo wafdigeena ku maqayay intuu imanayo inaan wax la ducayn ayaan soo jeedin lahaa. ugu dambeyn gudoomiye Baashe waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay dawlad goboleedka Puntland oo ay ku qaadaceen wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya. waxaanu sheegay in kulankan kaliya u dhaxeeyo laba dawladood oo aanay khuseynin maamul goboleedyo maadaama oo laga wada hadlayo qadiyada 60kii horeeyay hore markaanu Ingiriiska tagnay. farwala markaa ahaa madaxweynaha Puntland wuxuu soo diray dacwada in aan ka mid ahayn. waxa weeye waxa loo wada hadlayaa shirkii London baa lagu geeyay Soomaaliya iyo Soomaaliya wada hadlaysa. dani wuxuu ka mid yahay Soomaaliya. marka waxay go'aamiyaan baa lagu soconaya. laakiin maamul goboleedyadu shaqo kuma leh wada hadalada Soomaaliya. waxa loo hadlayaa 60kii Soomaaliya Somaliland siday kala ahaayeen baa loo wada hadlayaa. maamul goboleedyada loo wada hadli maayo. xamse xir saxid wararka lanta afka Soomaaliga CBA Hargeysa.